بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ورالها قالقة قيمها إيوه بدلنت بضن الكسود أفاد الدنيا أذكر جوتين وقتي هذا كلا دوان يا أذكر كلا تكنتيه أدبيني سلامي مرة لبعض إيه مصد حابة قف كسي وحنا سلامي مجد عيسى إيه مصد كيسة أنت مركز جاي مادو وحنا بحال كان عدو إلهي ورالي كان الله لبك المدود إن عن كإرادة حقيقة لبدأ المدود وحيكون رجيان وأيكون دوريان ama ay ku kooban yihiin arintaas xafladaas ballaaran ee aan wada sugaynay ee shalay iyo maanta ka socota magaalada caasimadda ummadda Soomaaliyeed caasimadda gobolka City caasimadda Dardhabe ayaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo in aan isdul taago wixii ka dhacay iyo macnaha ay bixinayso inta baan rabaa inaan inila wadaago بإذن الله واحد أحد. مركو ربحان ربا دليرتي سوق وقابسي قروح داس يوناجاس إنتالك يوفتك إنتالك كو قابلي وبعدين دتك إنتالك إني سود وريان. مدنان يا ماموس يا كرامو يا همبليو يا ديرجلين أنت بوي مدين. محايا لي وحاسوي مد مجالات الربح شنتي الصوماليين. أيه اسمه مدين ومدة الصومالي وحي كلمتي شنتي جيس بكلماتين جيبوتي بكلماتين وحي كلماتين الصومالية أمام حال الحمر وحي كلماتين صومالي الآن حرقيسة بورما أي أنت هكذا أو كحير مرة بكلماتين وحي كلماتين بطلان أي كلماتين وحاكلوا لقي مدين ديجان كصومالي ده أمانتي ويماتين لذلك أنت هالك waxay isugu yimaadeen inay xafladaas ay ka qayb qaataan lagu qabanayo caasimadaas Dardhabe marka dhalinyartii soo qaban qaabisay Allah aniga abaal mariyo xaqiiqatan wax wanaagsan ayaa tusteen halka waxa isugu yimiday dad culus oo qiimahooga iyo miisaankoogu aan la qarin karin ayaa isugu yimiday waxa isugu yimiday aqoonyahan waxa isugu yimiday siyaasiyiin waxa isugu yimiday dhaqan maal ayaa isugu yimiday waxa isugu yimiday oday dhaqameed ballaaran ayaa isku yimiday oo geeyga Soomaalida dhamaadkood ka wada yimiday marka waxaan leenahay wanaag fara badan ayaad sameyseen waad ku amaanan tihiin waxaad ku gasheen taariikhda buugga dahabiga ee lama ilaawanka ah ayaad ku gasheen xaqiiqatan wax wanaagsan qurux badan ayaad umada tusteen in la iniigu abaal gudana waad mudan tihiin waxaan ilaahay hambaliyo aad iyo aad ayaad umada uga farxisaan طلبات وحن ربا حفلتي سيدي أنا قانو أركي إن عن لو ذاك حفلة وحي هاي صدح قيبات أي أحد قيبت أوه رئيسي شلي صباح دي لقبتي ضد علميات أيه كوبني وحنت أبدا هالكافرية دتك سياسيين دتك أقويانك دتك وضيع دقاماتك هي دتك ومضى مقع كل حلم ayaa dhamaantood xagga isku yimiday oo meel kasta ka yimiday intaas aan sheegayba way ka kala yimaadeen si wanaagsan oo qurux badan ayay u dhaceen kulli dhamaantiin waad wada aragteen waad isku farxdeen maxaa yeelay waxani waa wanaag u soo beeray ummadda Soomaaliyeed waa arintii labaad ee UNESCO la geeyo ee ka socda ummadda Soomaaliyeed waa arintii labaad إلا جي يونسكو حركة عيسى يونسكو إلا جوية وحكوه الري هل أرن أو كلهاتي هل كأرن يكوه الري ينفعها قرال كي أف صوماليكا تابع كوه الرئيسي بس مركا ووح لقو فرحو ووح مقعة ومدى الصوماليات كرؤو قاضية دادك أقلق قاوان لأيقو هل دنعبي كفيرنيان دنكا سلبيكا أما دنكا نيجاتيف كأي كفيرنيان وحي كده حركيان وكلهاتي reer baa is-ula marka hore reer baa lahaa reer baa ku dhaqmayay 500 oo sano soo ilaalinayay gacanta ku hayay isku maamulayay iyaga iyo dadka jaarkoogaana ku soo kala badbaadeen laakiin hadda mar hadduu wuxuu noqday wax caalami hadduu noqday oo adduunka laga aqoonsaday waa ka gudbayaa reerkii waa ka gudbayaa wuxuu noqonayaa arrin qowmiyadeed buu noqonayaa arrin Soomaaliyeed buu noqonayaa arrin ay Soomaalidu wada leedahay isku wada dhaxaragto ayuu noqonayaa
marka arrinku subaxdii sidaas ayuu ahaa, sidaas wanaagaas ayuuna kusoo dhammaaday si qurux badan oo bilaa buuqa oo bilaa qaylo ah ayuu kusoo dhammaaday. galabtiiba haddana u imanayna. galabtii haddana waxaa isku yimiday hooyooyinkii ummadda Soomaaliyeed, hadday tahay magaalada Darrabe inta xaafadood ay ka kooban tahay, hadday tahay gobolka City dhammaantii, iyo hadday tahay gobollada kale ee ku xeeran ee Soomaalidu ay degan tahay. hooyooyinkii waxay isku xilqaadeen in ay soo sameeyaan xeedhooyin ay cunno dhaqameedkii ummadda Soomaaliyeed ay u lahayd hidaha iyo haaruunka, hidaha iyo dhaqanka ay u lahayd ayay soo sameeyeen. marka hooyooyinkaasina way ku ammaanan yihiin, wax wanaagsan ayay soo bandhigeen. xeedhooyinkii markii halkaa la iskugu keenay kadib waxaa dhacday in haddana socod laga soo bilaabo ilaa iyo magaalada lug lagu maro. taasina macnay bixinaysaa, macno ballaaran ayay bixinaysaa oo bogaadin leh. macno ballaaran ayay bixinaysaa oo u leedahay Darrabe iyo dadka dega. macno ballaaran ayay bixinaysaa oo tusaysaa dadka ku xeeran. macno ballaaran ayay bixinaysaa oo waxa ay baraysaa ama waxa ay tusaysaa qoomiyadaha Darrabe nala degan ee jooga. marka macnahaasi qof kasta oo aqli leh waa ka warqabaa, waa og yahay oo waa arkayaa. marka waxaan leeyahay tallaabo wanaag fiican ayaad qabateen. taasi shalay ba ii ahayd, sidaa bay shalay kusoo dhammaatay. dhammaantiin miidiyaad ka aragteen sidii ay wax kusoo dhammaadeen, quruxdii iyo shaxshaxdii iyo farxaddii. shalay sidaas baa lagu kala hoyday. saaka ayaa haddana la isku yimid. maxaa dhacay saaka? magaaladii Darrabe waxay wada noqotay gudhate iyo garays. gudhate cad iyo garayskii ay haweenku qaadanayeen waxay noqotay dhaqankii ummadda Soomaaliyeed. saan nii sheegay, ummadda Soomaaliyeed meelo badan ayay iskaga yimaadeen si ay xafladda uga qayb qaataan. dhammaantood dadka waxaa la oran karaa 90%. 90% waxaa la oran karaa dadkaasi waxay ku labisnaayeen dharkii hidiya dhaqanka ayay ku labisnaayeen. xaqiiqatan qof kasta oo danaynaya dhaqankaas, qof kasta oo danaynaya dadkaasi inay horumar ay helaan, aad iyo aad ayuu ugu farxay. xaqiiqatan waan ku farxay, inkasta oon jeclaa inaan maanta aan la joogo, inkasta oon jeclaa maanta xafladda ballaaran inaan kala qayb qaato, inkasta oon jeclaa maanta in aan wilwilaha iyo saddexleyda iyo iyo roorada iyo sayliciga aan ku goynay taraanka, laakiin uma suuro galin. halkaas ayaan kala qayb qaadanayaa xafladdaas inaan dadkayga la qaato oo aan farxaddaas aan la farxo. dhammaantii waxaan ilaahay wanaag iyo maamuus ayaa layna hayaa. macnaha kale ee aan rabo inaan ku daro ee ay bixinayso isku imaadka ballaaran ee dadku ay iskugu yimaadeen, ee shanta Soomaali ay ka wada yimaadeen, ee xafladdaas ay ka qayb qaadaneen, ee gudhataha iyo garayska iyo hidihii dhaqanka ay soo xidhaan, macnaha ayay leedahay. macnahaasi wuxuu tusayaa, wuxuu toos ugu dhacayaa qoomiyadaha kale ee Darrabe nala jooga. in badan baa la isku dayay Darrabe dadkeena in laga nadiifiyo, in laga maxaa laga barakiciyo. siyaabo badan baa la iskugu dayay, noocyo badan baa la iskugu dayay dadkeena in la baabi'iyo. laakiin waxaan leeyahay isku soo baxaas maanta macno ayuu bixinayaa. macnaha oo bixinaya waxaa weeyaan waan joognaa, waan jiranaa, waan haysanaa, waan ku noolnahay magaaladii Darrabe. marka qof kasti oo ummaddaas wanaaggeega iyo horumarkeyga danaynaya waa dareemaya. ta kale ee waxaan rabaa inaan u sheego dhalinyarta dadkii ka dambeeyay 2000 dhashay iyo wixii ka dambeeyay, waxaa jiray isku soo bax kan maanta oo kale ayaa jiray oo taariikhdu haddii aanan qaldaynin 99kii 97kii buu ahaa, 98 ma 96kii buu ahaa, 95kii buu ahaa. taariikhdaas waa la iisoo sixi doonaa.
waxaa dhacday ahayd markii ay yahaadhiigtu ay dir rabe ay soo gashay ee dargiga uu dhacay waxaa dhacday ahayd sidaa oo kale markii la rabay in laga dhigo federaalka markii loo diidanaa in ay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ay ka dhigtaan caasimadda deegaanka ay ka dhigtaan waxaa dhacday ahayd banaanbax sida kan oo kale si aan taariikhda ku hayo banaanbaxaasi magaalada Dardhabe oo dhan ayaa buux dhaafiyay Soomaalida oo teeraankaas hadda stadiumka la isku tagay ayaa la isku tagay marka waxaan leeyahay waa markii labaad ee sidaas ummadaasi ay isku soo baxdo waa markii labaad ee ummadaasi ay la soo noqoto wixii ay lahayd sumcaddii iyo maamuuskii iyo sooyaalkii ay ku lahayd magaalada Dardhabe weeyaan aad baan ugu faraxsanahay inkastoo aan jeclaa inaan maanta aan la joogo oo aan ka qayb qaato xafladdaas ballaaran laakiin xafladdaasi intaas ku koobnaan mayso hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inay inoo noqoto sanad kastiba waqtigii xeerka oo caalami noqday ila marka hore local buu ahaa innaka ayuu gaar noo ahaa dadkaas maxaa la yiraahdaa xeerkaas ku aftirsada ayuu gaar u ahaa laakiin hadda wuxuu noqday international buu hadda noqday عالمي حير عالمي أيو نقضي حير وحو نقضي ومدى الصوماليات أي وضع ليه دهي إسكا وضع حركته حير وحو نقضي متلي يدسك الصوماليات مركاسات درتين دمانتين وحاينون نقول دونتها مالين عالمي مالين أن حسي دونو مالين أن دمانتين أن إسبري دونو أن كقيب قادن دونو حيركا هذا الكيغا وحان كسو قبقبين أو كسو أفحري هدو إلى هاي رادو إن dad badan ayaa oo xeerkan waxba aan ka garnayn ama waxba aan ka ogeyn ayaa media la fadhiyo arrimo hadallo raqiis oo aad u raqiis hadallan aan maxaa la yiraahdaa aan sal iyo raad lahayn hadalla ku xumayn uun ah la dhex fadhiyo media waxaan u sheegayaa arrinkani waa socday wuxuu hadduu socdana cid kastaba wax way ka sheegi kartaa mana soo noqonayo oo halkaas hadda la joogo waa dhaafay oo local waa dhaafay heer caalami ayuu noqday markaas haddii aad xumaan ka sheegtid iyo haddii aad wanaag aad ka sheegtid intaba waa tegay ta kale ee aan rabo inaan maxaa la yiraahdaa aan ka dabageeyo waxa weeyaan waxay yiraahdeen xeerku diinta islaamka ma waafaqsan xeerku diinta islaamka uu waafaqsan yahay علماء أيها كهذا الشيء أو كفالوتي حركوا دينة الإسلام كبقول كي وبقول وفخصية واحد يتوح أي شعبكو أي فلين كران يوحوا حاجة للدولة دي أي فلين كران صالح قفكم مركو قف دلو حكم كوحة فلية دولة أي فليس أما قارئ أي فلية أما معمول إسلامي أي فلية إن إيه الكين لا بأحرم موت بأوبنا inay diya qaataan oo mag ay qaataan iyo in loo qisaaso oo loo dilo labadaas iyagu ku xiran yahay laakiin xeerka ciise wuxuu soo qaatay maadaama oo waqtigaas dawlad iyagu ay ahaayeen shacab iyagu ku heshiiyay sidee baan u kala badbaadnaa waxay yiraahdeen tadiyada in aan qaadano ilaa xukunka dilka waxa fulinayay dawlad ayaa fulinayay qabiil ma fulinayo reerna ma fulinayo marka waa tusaale yani kooban gaaban حركة بقول كيبا بقول وفقسين هاي دين الإسلام كأ عدي وإحنا قاعدين فكشفت أي وإحنا عدي كشفت حركة يسوي واصعدي وأنا لقول دقمة وأنا لقول دقمة دونا شرف يا كرامة أي نوت هاي إن عن سوق قاعد نمانت أو حركة ونقضي حر عالمي حر international وأدونك مال كستيبا لقى أقوصله فرحت بالنوت هاي فرحداس كل أدينا واد نقول فرحسا وحن كلنا هاي آد باو ما حصلت هاي أول شيء الفيديو جن وحن لنا هاي هن هابن لمن هلنا ما هم